السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso ku soo dhaw qaybtii labaad ee sheekadii jar isku xoorkii yaraa. qaybta koowaad sheekada waxay inoo joogtay dhubuhu waa xayawaan weyn oo qiyaastii laag jaarta wadankeena dhogor adag oo badanna leh. qaybta labaad ee sheekada waxay ku bilaabmaysaa kuna nool dhulka qabow ee waqooyiga fog ah dhubaha oo dadkaasi ay xeertiisana ku shitaan faynuusta. sidaas ayuu cali ugu sheekeyn jiray Anwar in dhulkoodii oo dhammi uu ka kooban yahay habeen dheer iyo dharaar keliya oo iyana dheer. haddaba markii uu Anwar qaatay sheekooyinka dhaadheer ee ku saabsan dhulka Eskimo-ga ayuu jecelaystay inuu socdaal ku tago indhihiisana ku soo arko waxyaalaha indhasarcaadka ah ee saaxiibkiisa ugu sheekeynayo. calina wuu ku dhiiriyay hamiga una ballan qaaday inuu raaci doono socdaalka. sidaa daraadeedna wuxuu hadiyad ugu keenay buug yar oo qurux badan oo ay ku taalo waxyaalo badan oo ku saabsan dhulka Eskimo-ga. waana Anwar oo ku fadhiyay kursi hor yaalay gurigoodii hortiisa dhabtiisana saarnay buug yar ee aan soo sheegnay. hase ahaatee xiskiisu oo dhaafsanaa buugga wuxuuna ka fikirayay dalalka fog ee quruxda muuqooda aan la sifay karin. wuxuuna ku riyoonayay sidii ugu suurtoobi lahayd booqashadaasi si oo indhihiisa ugu soo dhargo aragtidooda. sidaa isagoo Anwar u fadhiyo ayaa waxaa u yimid aabihii Kooye wuxuuna yidhi maxaad ka fikiraysaa? Anwar baa ugu jawaabay aabbo waxaa ii daran socdaal aan ku tago dalka Eskimo-ga waxaana socdaalka israaci saaxiibkayga rumaad ee Cali waxaana filayaa inaan ka soo kororsado aqoon dadka iyo dalkaba. odagiiba intuu qoslay oo gacanta dhabarka ka saaray yidhi alla Anwarow jar iska xoor sanida oo aabbo maxay dhulka fog oo cidlada ah aragtidooda kugu soo kordhinaysaa adoo arkaya dhul ka badan oo ka qurux badan kana muuqsan. Anwar taasi kama dhaadhicin wuxuuna hoos ka yidhi ha jirto aabbose maanay meeshu qayb dunida ka mid ah aysan ahayn. midda kale aabe socdaalkaasi waxba igu kici maayo keliya waaba adoo noo ogolaado aniga iyo Cali in aanu qaadano dayuurad dabadeedna waxaanu ku soo noqon doonaa maalin ama laba maalin. odagii wuxuu yidhi isaga oo la kaftamaya iska ilow waxaas aabbo waxaan kaaga baqayaa cidhib xumaanta jariska xornimadaada. isla mar ahaantaana iyaga oo Anwar aabihiis sidaa u wada hadlaya ayaa waxaa ku soo baxay duuliyo dhalinyaro ah oo ka mid ah duuliyayaasha shirkadda ahaana nin xagga Anwar u dabacsan una naxariis badan. markuu ogaaday waxa Anwar iyo aabihiis dhex maraya ayuu odagii ku yidhi isagoo Anwar ilkal gacal ku eegaya aniga ayaa maamule diyaar u ah in aan Anwar iyo saaxiibkiis ku weheliyo socdaalkaas haddaad ii ogolaato inaan u wado dayuuradda waxaana laga yaabaa inay sidaas kaa warwartirto xaggiisa. duuliyaha dhalinyarada ahaa wuxuu ka mid ahaa duuliyayaasha shirkadda kuwa ugu gacanta fudud uguna farsamada iyo xeelada badan. sidaas daraadeed odagii ayaa ra'yigii waafaqay waxaanu ogolaaday inuu u duuliyo diyaarad Anwar iyo ciddii kale ee u raacaysaba socdaalkaas lagu tagay dhulka Eskimo-ga. wuxuuse ku adkeeyey in aanu socdaalkaasi ka badan 2 maalmood. duuliyahaas oo magaciisii la oran jiray Siraaj ayaa wuxuu si daryeel ah uga xarka xirtay socdaalkii uu ku kaxaynayay Anwar iyo Cali iyo ciddii kale ee asxaabtooda ah ee raacaysa. baraaraha Anwar maalinta wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karayn wuxuuna u riyaaqsanaa suuragalka ay suurtagelayso inuu soo barto dal cusub soona arko caadooyin iyo dhaqamo ka fajaciya iyo muuqaalyo dhugasho leh. wuxuuna markii diyaarsaday qalabkiisii wuxuuna isla mar ahaanta warkii gaarsiiyey saaxiibkiis Cali. sidaasi la-egna wuxuu ku marti qaaday socdaalka 2 wiil oo saaxiibadood ah iyana martiqaadkii way ka aqbaleen. dabadeedna barbaartii ayaa guntiga isku wada giijisay. waxbo yaanan hadalka ugu daaline dayuuradii ayaa kooxdii dhalinta ahayd la kacday oo hawada la gashay. intaasi waxay inoogu dhammaaday qaybtii labaad ee sheekadii jar iska xoorkii yaraa.